don't cry don't cry don't cry don't cry ha oynin yaa تمام ha oynin anaa ku caawinaya anaa ii imaanaysa anaa ku soo wadanaya don't worry bismillaahi raxmaani raxiim saa ha oynin maamo please ha oynin ha oynin yaa تمام you have to be strong for yourself oohin waxba kuma taaranaysa ma fahante ha oynin you have to be proud soomaaliyay soo dhawaada waa idin salaamay soo dhawaada markaad soo badataana qofaan la hadlayaa habaryaro ha oynin adkayso gabar yar baa tahay dhibaatadaanayto wax walba ilaahay baa keeno shaxshaxlay soo dhawaada dhibaatadan wax walba ilaahay baa keena wax walbana waxaad tidhaahdaa alxamdulilaah alshukrilah maanta 21 sanaa jirta haddaad rabtid qof soomaali aad la noolaatid aniga baasiboor baa qabtaa tikidka anaa kuu soo dirsanaya markaan soo laabtada safaraan ahay aniga kaala ii imaaw anigu ila noolaaw اوكي xur baa tahay 21 sanaa jirta meesha rabtaa ka dhici kartaa haddii hooyo iyo aabba iyo reerka dhibaato aa kala kulantay aniga ku nool ii imaaw guri weynaan kaligay deganahay anaa ila noolaanaysaa ifka intaa ka nooshahay iskool baan ku geysanayaa luuqadaan ku barayaa anaa ila noolaanaysaa ان شاء الله ha oynin gabar yar baa tahay waa lagaa gardaran yahay soomaalida ilmaha dhalli ma dhagaysano kuwaana qaata caawa ha lagu waana qaata gabadhan yar oo annaga aan dhalna 21 jirka ah kuwaana qaata ilmihiina dhagaysto ilaa aa ka soo badataanna ma sii daynay gabadhan waxay soo wada wax maskaxda ka weyn mucjizo waa mucjizo ilaa aa ka soo badataan anigu wax meesha aan dadka ku soo dhimaashtiri ilaa aa ka soo bahabar macaan ha eedo ha oynin yaa تمام ha oynin acuudu billaahi min ashaydaani rajiim quraan akhrista ilaahay caafimaadoo ku siiyey alxamdulilah dheh wax walba kugu dhacana wax anaa ku aqaana adiga horta iska bax wax walba oo kugu dhacana qadar alleh kugu dhacaan ma fahantay ها marka waxaan rabaa sugo codkan kuu dheerayna iisu telefoonka caadigaa xira iisu gabadha waxa ku dhaca waa ogaanaysiine soo badta markaad soo badata hadhow hana igu soo celi iyo internetka dhinaab iga baxay iisuga habaryar ma ku jirtaa eedo qadka ma ku jirtaa ها ha okay saa qadka mulki macow macmacaa ku siiya soo dhawaa xaawa soo dhawaada dhammaantiin waa idin salaamay okay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soomaaliya caawa gabadha markaa maqashaan dhagihiina qac ka kacay kow dhaha wax mucjizo ah aan dhagahayga anigu ii deeqi waayey gabadhan ii sheegtay idinkaa maqlaysiin asxaan ii sameeya intaa ahaan jirteen ahaada haddaa la kala seexdayna ha lay sheego waa la kala seexday halay dhaha gabadhaanito telefoonku waa ka daminaa habeen dambaan soo qabanaa gabadhan haddaa la kala seexday soomaali kala seexatayna biriq soo dhawaaw ubax soo dhawow dhammaantiin waa idin salaamay qof ooynayaa telefoonka ku jira hal ma idin salaami kara soo dhawaada okay hadda waa soo badateen ilaa 60 qof ay kusoo darsoonta ilaa 60 qof ay kusoo darsoonta kala 200 markaa gaartaan baan gabadhan anigu arrinkeeda keenayaa cabdicasiis waa mahadsan tahay cabdifataax hawa macaan ma joogtaa macmacaan ku siisay juuda kaasiya okay program gabadha codkan sii daynaa markaanayto youtube channelkaygana soo gelin waa la soo jeeda da soo jeedaan okay habaryaro ها هبا habaryar macaan horta soo dhawaaw هاي gabar yar baa tahay 21 sana jirtaa maaho ها okay waan ka xumahay waxa kugu dhacay dhibaatada adiga lagu gaarsiiyey horta qadar allay u dhacday shaydaankana meesha wuu ku jiraa waana ka xumahay in dhibaatada lagu geeyo maantana in aad la joogto reer Soomaaliyeed aadan aqoon u lahayn adigoo waalidkaaga magaalada kula joogana waa ayaan darro ها marka waxaan ku leeyahay haddaad u baahan tahay meel aad ku noolaatid anigu ii imaaw anigu hadda safaraan ahay safarka markaan ka soo laabta anaa ku soo wacaya baasiboor baa leedahay adduunka meesha rabtida ku noolaan kartaa anigu kaala Sweden guri weyn baan deganahay kaligay baan ahay kariimkay anigu ila noolaaw
aniga ila cuntay meeshaan aada ila aad waxaan raba ila sameey halkan sariirtana wada qaybsanaynaa insha allah ma fahantay ha habo ina gabar yar soomaali ah oo saan iu oys oo saan loo soo dhibaatanays waa ayaan darro ha oynin ha oynin ha oynin wax walba way dhacaan alxamdulilah dheh horta maanta waxaan u mahadcelinayaa maamada gurigeeda aad joogtid iyadana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta adigoo UK jooga oo London ma joogtido ha adigoo Birmingham ha Birmingham 2 hours away. yeah 2 hours away from London 2 hours from London Birmingham ma joogta maho maanta waxaad heli kartaa 21 jir baa tahay nin ajaanib intaa raacid balaayo qamri xashiish wax walbuu ku bari lahaa maanta alxamdulilah dha wixii oo dhanna kuma jirtid cid soomaaliba ilmaha iskoolka asla dhigataan hooyadooda gurigooda alla joogtaa marka horta alxamdulilah alshukrilah dha marka ugu horeyso ma fahantay ha marka waxaan kuu sheegay cabdirasaaq alteesto waa ku salaam amoore miya soo dhawow waxaan rabaa inaan ogaado waxaasay u dhaceen ma ii sheegi kartaa ha anigoo 13 jir ah oo fadhiga hoose jiifna aniga walaashayda fadhiga hoose jiifnay waxaan cunay watermelon oo so waan isku kaajay ani like 12 meelaha habeenkii waan isku kaajay haye marka intaan kacay waan nadiifiyey kursigii anigana waxaan waayay suwaal aan xirto because suwaalkan xiran lahaa wuxuu yaalay dusha hooyo qolkeedu yaalay hooyona iyagoo dhan way jiifnaan so aniga kursigii aan ku noqday waan dekiyaan saaray shaad dheeraan iska xirnaa marka like I say couple of minutes 30 minutes to an hour aabaa soo degay so anaga waxaan kusoo kornay aaboo bogana gelinaya so waxba khalad saas maan ugu ujeedin so aabuu yimi wuu isoo ag saaxday wuxuu igu yiri aniga waxaan ku yiri aabo hoosta dekaha gelin wuxuu yiri waayo waan isku kaajiso ma xirni suwaal yo nigis waxaan la xiranahay shaad marka wuxuu yiri hayo waa okay marka waxaan dareemay asigoo ita taabanaya waan qaboobay waan cabsaday marka waxba maan ahan marka khadiija madaxeeda walaasheeda yar khadiija madaxeeda soo taagtay marka gacantiisa wuu dhacay wuxuu yiri oo khadiija hooyadaada ku doonaysa bax dusha tag hooya ku doonaysa waxay tiri okay aniguna waan cabsanay waxba ma oran karo hadalkii afkam ka soo baxaya marka dushu ay tagtay waxaan dareemay dekaha agteeda oo kor iyo hoos soconay like wuxuu sameynaya aniga marka aniga u taabsanaynin hal mar la daawada iga geliyay haye daawada iga geliyay habeenkaasoo dhan anigu la igu ciyaarayay ha oynin haye aniga igu ciyaaray dabada xooga iyo xanuunsa kas dabada uun igaaga sameeyey and then for months or like the second daygii anagoo dhan ah hoos joogna anigoo cabsanayo anigu wuxuu igu yiri dhagaha oo aabayaasha oo dhan ilmahooda sidanay ku sameeyaan waa okay so cabsanin anigana ma doonaynin aan waxaan leeyahay inta aniga sin I thought I was committing sin because aabahayga maskaxdeeda waxaan isku jeeda waxaan aabaha wuu ku sameeyaa ilmihiisa laakiin aniga maskaxdeeda waxay ugu jirta ma doonayo laakiin hadda ilaahay wuxuu ii qorayaa oo xaaraam camal because aabahaygan diiday marka anigoon second day anagoo dhan hoos joogna aniga sariirta agtiisa aan jiifaa laakiin wuxuu doonay inuu bagga i gashto anigana waan iska riixaya asigana wuxuu waay maxaad ii riixaysaa naya xaggan imaa marka wuxuu maayo marka hooyaasaa ii eegtay hooyana waxay naaska siinaysay walaalkaygiya
naaska siinaysa and then hooyo waxay ugu like third fourth day hooyo waxay ugu why maxaad iskaga dhigaysa inuu aabahaaga nin shisheeye yahay anina waxba ma oran waan cabsaday so for months like 3 below ha 3 bil meelaha wuxuu ugu sameeyeen dabada and then excuses oo igu oranay like first wuxuu yiri aabayaasha wuxuu ku sameeyaan ilmahooda marka wuxuu yiri waxaan ku ready kaaga dhigaya ninkaaga sida u ogaatid waxyaalaha loo sameeyo marka wuxuu yiri hooyadaada ay soo diiday aabahaaga waa inaad habi ka dhigtid marka dabadu ahaa after 3 months wuxuu noqday horta like horteedu ku sameynaya so hadda labada meel ugu sameynaya marka any chance aan guriga joogo marka even aan ill noqdo aan jirado weli iskuulka waan tegi jiray because waan cabsanay ma doonayo waxaan so the first bill waxaan umlay okay uu ahaa hortay hoos igaaga sameynaya xanuun waxaan iska riixay waxaan umlay inuu ilaahay ii qoriyo oo inanta waa inan xun aabaheeda diiday marka hal maalin iskuulkaanu joognay waxaanu daawanayay Precious waxa weeye movie oo nin hooyada ninkeeda gabadhu fuuliya ilmaha ka dhashay iyo wax kasta so markaanu daawanayna gacantan taagay macalinka waxa ka wada macalin waxaan okay ma aha ilmaha oo dhan wuu ku dhacaa intuu movie oo dhan uu joojiyo wuxuu ku yiri haddii waxaan kugu dhacayo waa inaa hadda hadashid because waxaan okay maha aabayaasha ma sameeyaan waxaan so waan aamusay marka qofka waxaan u arkay asin anigu waxaan igu dhacaya so hadda guriga markaan tago aan garanin gurigan tagi wuxuu igu dhacayo waxaan bilaabay inaan dagaaltimo wax kasta dagaal asigana wuxuu keenay inuu xoogsado xoog ii qabto inuu igu sameeyo after 14 meelaha waxa iga soo dhacday baby anigoo jiifa aniga hal maalin oo jiifay waxaan ku kacay sariirta oo dhiig ka buuxa anigana dhiig wada leenahay hooyadana aniga waxaan leeyahay inuu dhiigiiga yahay maxay qala hooyo my period came hooyada timi intay sponge way nadiifinaysa haya aniga ku soo gadaya buushka iyo wax kasta aniga markaan suuliga galay hilib hoosteeda like marka suwaalka bixiyo hilib ku jira suwaalka iyo nigiska hilib dabarka ay xanuunaya luguma xanuunaya aniga waxaan isku leeyahay waa dhiig xanuunka waa normal second day dhiig migiman 1 dot or like dhiig u akeen oo pink hoosteeda ka timi marka couple months after uu igu sameynaya hooyo dusha qolkeedaan u joognaa uu igu sameynaya aniga waxaan qeynaa ilaahayo please hooyo ii soo gasho please ilaahayo waan cabsanaya ii soo gasho ma doonayo si xoog u haya gacmihiisa wuxuu igeli like spider camal intuu saa ii qabsaday uu igu sameynaya hooyo way soo gashay alxamdulillah hooyo soo gashay hooyo inta abaabka saa u furtay eegtay ilaan marka abaabka la furqolka waa mugdi marka abaabka la furqo nalka soo galaya wax kasta loo jeeda hooyo inta saa u furtay eegtay aniga oyni uu asiga i kor jiifo abaabkii xirta jinjartii hoos tagtay anigana I gave up dagaalkii aan dagaaltami I gave up waxaan tiri okay then wuu igu sii sameeyey so markaan ahaa 15 uu joogsaday because dagaalkii waxaan keenay inaan is wada fafeedno like grown men like laba nin oo waaweyn oo isdilaya aanu keenay 16 markaan 16 noqday wuxuu qolkii ii soo galay asigoo mindi haysta wuxuu doonay inuu mar kale igu sameeyo horta ii geeyo wuxuu inuu like aamuso marka adigoo saas mindida igu hayo oo gacanta kale suwaalkiisa bixinaya aan like waan ka furfurtay markaa lugteedu gooyay markuu lugta gooyay waan ka cari waxaan u tagay jaarka wiilkan kalam la oradan u tagay hooyadii snares ahayd iyada lugta ii nadiifisay oo ii xirtay marka hadda hooyada waan u sheegay 17 reasonkan ugu aamusay is because aabay wuxuu yiri oo ninka wuxuu yiri
aan sheego first ma la aaminayo second of all haddaa wax oratid anigaa kow kaasinaya habeer waxaan doonaya meeqa jeer inaan kow iska siiyo waa adigu isdishid waxaan iska soo calaqay janjarta sidaan le u dhinto kusma doonaynin xanuunka adi maa jaraanjarta iska soo tuuray aniga janjarta iska tuuray kasmaba doonaynin xanuunka kas waan ogaa maalintaas intuu soo noqonay mar kale ugu samaynayo son janjartan iska tuuray anigoo calaqan hooya iga soo saartay oo inta xariga iga goysay CPR ay ugu samaysay waan kacay ma xarag baad isku xirtay ma jaraanjarta kusoo tuuri rabtay habar yaro ma xarag intaa isku xirtay jaraanjarta kusoo tuuri rabtay ha ma iska tuuray waa iska tuurtay haye waan la laaqaday hooya intay goysay xariga ay CPR isiisay haye so waxay ugu tiri waa maxaa u samaysay ma doonay inaan joogo marka waxay tiri naayaas waxaas weligaaga samaynin yaa haddaa wax ku haya aniga ii sheeg waxay haye marka maskaxdeeda waxa ku jirta waad igu soo gashay ha qolkay kugu soo gashay way ku aragtay adoo aabay wax kugu samaynaya maxay wax kaaga qaban weysaa maskaxdaada ku jirtay haye ha ona habiyo ninkan wuxuu hooyo ku samayn jiray iyadoo uur leh uu kow ka siin jiray uu dili jiray stoofka ku kartaa iyadoo cunto karinayso uu madaxeeda hoos ugu gelin jiray ku kartoo daaran ku karka oo daaran muu hooyo madaxa ugu gelin jiray hoos ha uu sii dili jiray aniga always u hiilin jiray aniga oran jiray alla hooyadaydaa taabanin markuu saa ii soo jiraysto waan isku kaaji jiray bas waan ogaa inuu kow iga siinayo hooyana ilmaha dasha u carar jiro qolkay isku xiri jireen anigana kow iga siinaya suunu iisoo qaaday ulu iisoo qaaday dacasu iisoo qaaday anything markuu daalo wuxuu gana shaatkaaga bixi su'aalka bixi dulka saaxo dulka marka saaxaysu ulu ugu dhifanaya asagaa dhalay soomaalida suga habar eedu waxir ii sug soomaalida i weydiinay waxaa idiin sheega dadka beeshkayga ku xiran haddaad idinka isoo dhagaysan weyseen ee gabadhan 20 sano dhibaato ku jirta cid soo dhagaysan weyse weligeed cid dhagaysta ma laha haddaadan idinka isdhagaysan anigaa dhagaysta ma fahantay anigaa dhalay dhib la-aanaa dhalay ma fahanteen haddaadan walaashaa edab aadan ku dhagaysanaynin iska aamuso aabbihii dhalabay ka sheekaynaysaa haye haru soco eedo mii maqasha haye ha so hooyo wuu dila anigu like igu dili jira waayo wax kasta igugu dhufan jiray aroorta kale markuuna for no reason u dilayo oo hooyana uu gacanta u qaaday aniga always oranka may aad taaban hooyadayda daa okay adigu boolis ma u wacday eeday waxaan ku weydiiyey boolis ma ugu wacday markaa adigu ninka aabbo waxaas markuu samaynaya maayo waan cabsaday wuxuu yiri qofna ma ii aaminayo haye ana waxaan u cabsanayo walaalahayga waxaan ka fakeray haddaan waco walaalahayga la qaadanayo systemkana ogada waa messed up ilmihii oo hadda la qaatay waxay noqonayaan qaar xashiish cabiya qaar alcohol cabiya qaar la fuulayo wax kasta aniga systemka saas maan u doonaynin walaalahayga inay galaan so afkayga waxaan haystay anigu igu dhacay walaalahayga ma ku dhacayaan so inaan aamuso ilaa hooya inacaysa haddooto walaalahayga ma inacayaan okay marka maxaa dhacay markii dambe maxaa dhacay okay ilmaha markay kaa soo dilmeen dhiiga kugu dhacay oo maxaa lagu dhahaa ii sheeg oo aad rafaaday oo aabbo u dili jiro hooyo ee dhibaato aad soo martay caqaba aad soo martay ugu dambayskii maxaa dhacay ugu dambayskii 17 marka ahaa hooyaan u sheegay hooyaad u sheegtay ha haye maxaad ku tiraahday hooyada ha hooyada maxaa ku tiraahday 17 markaa jirtay waxaan ku ogaday hooyoy aabbo wuxuu iga dhigin jiray naag reasonka dusha ila anigii ooli ii wici jiray oo oran jiray may saciida boga iglinaysa may saciida i saaxinaysa may saciida ii raacaysa holland may saciida ii raacaysa london iyo meelaha it's because anigu iga dhigin jiray naag wuxuu iga oran jiray ina hooyadaada habbi ma iga dhigayso hooyadaada maanta ma igu samaynin so adiga happy inaad iga digtid adiga inaan waxaa ii samaysid reasonkaasoo dusha ila ii kaxaysan jiray inuu ifuulo oo naag iga dhigto hooyna wejigeeda feersi wuxuu ahaa like shock
way naxday haye and then waxay tiri aniga wax samaynaya waan cabsanaya aan sheegin kas kow iga siinaya marka waxay tiri haye aniga like I say 1 week later aniga walaashayda hadda gurigeeda joogo friendkayga alcaamadan joognay hooyo saa wacda waxay u tiri aabahaaga ku raadinaya aan waxay waayo waxay tiri ku raadinaya waxay waad u sheegtay waxay tiri haa ku raadinaya haye aniga gurigan ka baxay guriga hooyan tagay waan waxaan ku oqday aawe aabo adigu kuu soo baxay 2 seconds later asiga soo galay asigoo dafta badan wuxuu yiri ala soo gal ilma qolka ka baxa soo gal Saciid soo gal asigoo warbaraya wuxuu Saciiday wax doonaysa inaan hooyo iyo family-ka aan lose gareys wax doonaysa inuu wax kasta naga dhaadhaco aan xiirmay marka wuxuu hay hadalkoo dhan bedel oo farti aan ku geliyay hadalkoo dhan bedel maxaa hadalkoo dhan bedelaysaa haya farta u bedel iska dhig inaan farta hoostaada geliyay inaan farta hoostaada geli aan wax kale ku gelinin habiya walaashayda walaalkayga iyo hooya maqlay iyagoo asigoo saa oranaya haye way maqleen asigoo oranaya hadalka bedel aan waxay ma bedelaya hadalka waa run ma ilmahan nuskareeni hooyadaada nuskareeni waxa doonaysa inuu dhaco listen waad ugu samaysay adiga khalad kale maxaad ugu samaysay saas haye marka 2 minutes later intuu hooyo la hadlay carabiyu ku hadlayay laakiin waan qartay wuxuu oranaya gabadha waa beenteeda waa confused waa stressed wax kasta examskeeda wax kasta soo socda so waxay u baahan tahay break ana wuxuu ugu Canada tag habiya waan garanay waxa Canada jooga waxa jirta naag oo ay isgaranayaan oo fasha garanaysa oo sixir ka samaysa a'uudu billahi minash shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim maya ma tagay Canada hadalkayga ma bedel waad igu samaysay asigana maskaxda madaxu qabsanaya oranay my saas ma badafirayo dafarin anigana waan late noqdo waan saaxday second day wuu jooga ana hooyada waxay ma dooni inuu gurigan joogo mise aniga baxaya hooyo ninkan wuu igu sameeyay waxan waxay tahay maxaa doonaysaa waxay dan ninka fur on top of that ilmaha guriga imaniyo ilmaha uu ag imanin waxay tahay hooyo ay furtay laakiin waxay ku khaladay ilmahay hadda geysay ani 24/7 waxaan hooyo ninka muxuu guriga u soo galay waad iska kala tagteen hooyo waa xaraan ma aha inaad isku gaari aad ku jirtiin ilmaha xagga abaabka uga sii hooyo you soo gal intaas oonan ku lahaa hooyo soo gal hadda waxay qoontaa gabadhan 3 years ay stress igelisay waxaan ku oranay hooyo soo galin guriga that's it hooyo waxa soo sameeyay so anyone one ka tagay guriga like 7 months ago aan guriga ka baxay waxaan tagay Jaarka for 3 months marka eedadeeda hadda igu tiri my guriga imaam anaga ila joog waxay hayeen okay walaasheeda yar oo 15 ka soo guriga timi aniga ma ii sheegay waxay sheegtay habeer yo inanteeda kale aabo wuu itataabtay anigoo schoolka ka yimi oo PE shortkayga xiran عبايدون سكساري في شوت كي حرن ويأكل ويتطابط ما وتطابط يجد وين خبودي and then I think هواياتمي مثلا neighbor كها يمي مكو مخلو وجوز أنت يدا عرض سولك إسكو حرتوه ويسي إيه ساو شيء أنا مكان وصام مخلو حير ما بوليس كانوا شيء مثلا أنا قاعدين كوكسيني ولا أنا يقول حنقول تجيب because هاي ما كحنين هاي واحد ما يتشوشينين ولا عشان هاي إذا أنت ما حتى بس هاي إنك وصومالي هاي وصومالي هاي سعيدة أغن كده وحبة ما يكون سميني سيدا أنا جي أمينيسا ولا عشان هذا كده أنا حتى غيزم أنا واحد عاونات تنقبهنا إس ولا له هيجا أنا يقول دعوة واقع لكن ولا له ما توني إنه واحد يقول دعوة بس ولا نير هبير هذا ولا عشان هو تتابتي she can't concentrate exam كوي fail كرانيسا أنا هو تتابتي مو بقولين وحبة مو كسمين لو هو تتابتي
aniga hadduu aniga waxay ugu samayn lahaa ugu sameey one time walaasheeda way waalanaysaa ani waxaan u baahnaa caawinaad inaan walaalahayga save garay hooyadeedu tuso hooya ninkan saan wuu sameeyey ilaa asiga daba socotaa okay wax ma ku weydiiyaa booliiska adigoo aad wacday aad u sheegtay arrinta booliiska marka maxay ku jira ilaan booliiska adigu wacdee booliiska waxay ka qaadeen statement anna waxay ogadeen waxay doonay inaan sameeyo video statement so emotionskayga ay qabsadaan waxay rahaya social services was involved social serviceska waxay u tagaan guriga markay tagaan hooyo waxay ka dhaadhicisay waa happy ilmaha waa happy aabahoodan happy uu ku yahay aabahoodan waxba bay ku sameynin intaasi ka dhaadhicisay hadduu waxaa run yahay waay maxay walaasheed u soo carartay waay maxay anaga nugu timi eedadeed u timi ilaa aniga may doonayn inay ii sheegto kas waa ogtahay inaan xanaaqayo eedadeed u timi waay maxay u oranaysaa waxa hadduu been yahay haddana hooyadeed meelaha waxay ka socotaa oranaysaa saciido suuqay gashay reasonkay waxaan u sheegaysa waxay doonaysaa freedom first waxay tiri 3 years gabadhan ay ugu stress garaysay hadalkan ay ugu dhibtay haddana eedayaasheeda kale london degan waxay ku orantaa hadday hadalka teeto kas waxay doonaysaa niman kale la seexato haye so which one is it ma 3 years ago miya mase hadduu hadalkan soo baxay hooyo hadalkeeda is not like one way ma aha wuu iskala badbedelayaa ninkaas uun haddana way igu xanaaqtay markaan booliiska wacay waxay tir gurigay iisoo galay masaa mindiyaan kaa taagay because ninkaan booliiska ugu wacay kas runtan doonaya inaan u sheegay inaan furfay hooyo waa ka caddaynteeda wuu igu sameeyey ilmaha ka ilaali wuu ku samayn doonaa laakiin malay aaminsana hooyo waa taa no once eedadeeda weydiisay siday tahay saciida no once hadduu waxaan been ahaan lahaa ninkaa muu iman lahayn muu igu oran lahayn aaba maxaan kugu sameeyey muu ila hadli lahayn hooyana ma ila hadli lahayn ma iyaga own lifekooda degan aniga maba lay doonayo anigana cawradda ah aniga hooyadeeda caawin jiray anigaa safegayn jiray markuu gacanta saari jiray aniga u hiilin jiray walaalahay kale ma hiilin jirin aniga hooyadeed u hiilin jiray hooyadeedna once ii hiilisay hooyadeedna once igu ninkaa ku khaylisay ku tira ninkaa gurigaas soo galay inanteeda taabo no once hooyadeeda saasir aniga maba ii jecla maba ii doonayso because wantan sheegaya I don't know what to do. Magagani waxaan sameeyo runtaan sheegaya ilaahay wuxuu been yaala sheega runta ku socda waata runtan ku socda hooyadeeda way nacday runtaan sheegaya hooyadeeda may doonaysa anigana hooyadeeda waan doonaya eedu ma kula joogtaa eedi ii weydiinay ma rabtaa inaa hadashaday ku tidhahdana habarhano eedu ii weydi inay hadashadee rabta asalaamu calaykum codkaa kuu furan ukhtii codkaa kuu furan kow dheh kun qofna wayna dhegaysanaysaa laba dheh waxaana waxaa waaye waa masiibo soomaali way ka dhacdaa waxaan waa cudur ma fahanta horta soomaalida waa inay ogaadaan waxaan waa cudurkan qof walbuu ka dhacayaa cudurkan qof walbuu ku dhacaa ma fahanta cudurkana ummadda allaha ka qabto anigu I believe in waxaan cudur yahay dadka soomaalida waxay anagu muslimaan hanaguma dhaco laakiin qof walba inuu cudurkan ku dhacaya anigu waa believe garaysanahay cudurkana inta qabta allaha ka daweeya inta aanan qabina allaha kuma rido gabadhan sheekada isay igugu sheegtay waa very sad waxaa waaye meel baa i go'day siday ii sheegtayna gabadhan adigay kula joogtaa 4 bilood
marka waxaan ku weydiinaya waxaa waaye waana gabar yar oo lasoo fara xumeeyey waxay tiraa 14 sano markaan jira ilmaha iga soo dilmay waxay igu tiraahday cid i dhegaysanaysa malaha mar walba maalmo markaan idin dhaha Soomaaliya is dhagaysto ilmihiina dhagaysto cunuga waqti geliya hadduu cunug ku imaado waqti geliya dhagaysto sanad dhan baan Soomaali lahaa iyo intaan Soomaali aqaani oo dhan 20 sano Soomaali media ku dhex jira oo raadi aan ka soo shaqeey 94 ilaa hadda ku dhex jira Soomaali maalin walbana waxaan dhihi jiray hal leys dhagaysto dhagaysiga faa'iido ay leedahay qasaar haddaan leys dhagaysana qasaarada ay keenaysa waa saan faa'iidada ay keenaysana waxa way hadii la is dhageysto wax walba la xalin lahaa oo wax walba la xalin lahaa gabadhan maalinta ugu horeysay haday cabsi aysan ku abuurmi lahayn ay baqan lahayn ee hooyo dhageysanaysa ee haysata daras dhageysana ee haysata waa gabadhan wax baa laga qaban lahaa arintan marka horta waan ka xumahay gabadhan wixii soo gaaray annagii ummadda Soomaaliyeed ee daawanayso qof walba caawa caloosha hurayso ani waan u sheegay waxaan ku dhahay hadda anigu safar baan ahay insha Allah biidin Ilaahi Kariim waxaan aadayaa in Spain markaan ka imaado gabadhan anigu hadaadan adigu hayn karin xitaa anigu ana haysanaya ana ila joogaysa ana caawinay ana dhaqtar u geysanaya ana maxaa lagu dhahaa daweysan 21 jir waa baasboor ay leedahay ma fahamtay waa xur adduunka ma sharafta ka noolaan kartaa 16 jir ma aha oo maxaa lagu dhahaa mas'uuliyad laga qaadaya wadamada qurbahan joognaa waa 18 jir cunuga 18 jir haduu gaaro xur buu yahay gabar yar oo Soomaali oo saan loo soo dhaawacayna waan ka xumahay horto aad baan ugu xumahay Soomaali oo dhan baa ka xun inta wax garanaysa ka xun inta dhibaatada Soomaaliyeed nacib ayaa ka xun caawa ummadda Soomaaliyeed wallahi halkaas ay ka oynaysa caawa waxay ku leeyihiin waan ka xunnahay kana raali noqon marka gabadhii adiga markay ku timaaday arrinka ku sheesay adiga maxaad samaysay aniga markay ii sheegtay waxaan sameeyay hooyad baan u yeedhay haye labada mara xaafadana waan u yeedhay haye waxaan igana yartan dhagaysta bal waxay wado adiguna Saaray gabadha dhashay Saaraa la yidhaa haye adiguna bal Saaray arrinka kan waxaad ogtahay sheeg baa haye waxay tiri waxaan ay sheegayso dhan markay hadalkeed iska furatay waxay sheegayso dhan isku isbaahayd inay iska baxdo inay suuqa iska gashay doonaysa bala halkii adu dartii waa lagu raagay dumarkii xitaa way qaadeen waxay dhan inantaadan yar ninka markaad waxa ku aragtay maxaad iskaga saari weydo waa saaray bay tiri haye waan bixiyay iyada awadeed baan u saaray waan iska furay wadaadadii iyo shaqadii wax bay yiraahdeen meherba kuma hayo haye marade waxaad dhaceen sidii ku baxay tiri haye marka kadib aqalka waxay tii carruurtii uu imanaya yartina waxay leedahay tiri aqalka ma soo gali karo haye walaalahayna uma geyn kartid marka carruurta anigu waan u geeyaabay tiri waanu tagnaa adigu de waa inaan waa ka xidhaya moogta inanta haye ina ka xidhana way ka caawiyaa adigu ninkan horta sina kama marmay dadka hortiisa ka tag diyaarna saari maalinta uma yahayn inay tiraa ninka bartaasan kaga xadhaya ina keen inanteedii inay tiraa diyaar uma yahayn haye dabadeedna dumarkii waa arday adigu xogaa karti waad ka garan Soomaaliya xogaaba yar socotay jiitatay markaasay de heshiye bal horta iniga adiyayna taa haye way heshiye waxaa yar dhukateen kadib Sahra mar dambe inantii xitaa aniga xitaa way la soo hadli jirtay inantu say tahay mar oran jirtay halkii bay ku goosatay inaga baxday inantina ka tagtay marka inanta reed buu dhiban tahay marka wax badan inta badan xitaa ma aragtay way iska dawaqsan tahay ciyaalkoodii xitaa laftarkoodii marmar bay noo yeedhiman jireen imiga nooma yimaadaan way goysay sida arrinkaas oo dheer dumarka ugu yeedhay inantii way goysayba inantiina xitaa way gooyay isagu si hadduu waxba samaynin muxuu inantiisa ugu iman waayay oran waayna aabo gorma wax kugu sameeyay hadda waa ku magaalada waan kaaga tagayaa ma yidhaa hadduna waxba samayn agteeda ma soo marayo meel xare wuxuu kale leeyahay eryadii hal eryada meesha doonta ha marto waa ayaan darra ayuu kale waa curadkoodii ilmahan mar bay Sahri dhalaysaa mar labaad ma dhalayso nin way ninka way kala tagay nin kala qabay adeerkeeda qabo guursatay way ka tagtay kan ilmaha u dhashay ilmaha faraxumeeyay way ka tagtay nin kale guursatay way ka tagto kali waa muwalad kan inanta faraxumeeyay haye yarta dhalay waa arabkii xagga arabteeni halka magaaladeena deganay Muqdisho haye weeyaan oo isaga weydii Soomaaliyeed baabaha waa yamani labadooduba mala haye
waa yamanta Soomaaliya degta miya yamanta Soomaaliya degana Soomaaliga sidaa ugu hadlayaan oo yaabayso ka awood deganaa weliba waa fahmay haye iyadu waa Soomaali hooyada waa Soomaali sax aabihi waa yaman waa Soomaali degan waa iska Soomaali waa Soomaalideenaadi waa fahmay waa Soomaalida yamanta soo sano degneed oo maxaa lagu dhahay af Soomaaligan si fiican ugu hadla boqol qof dad badan aqaan yaman af Soomaali ah si ka wanaagsan buu ugu hadlaa haye ayuu ku hadlayaa waa dadkii ku dhashay ka awoobay ku sii dhashay nacam waa ogahay waa dareemi kara boqol aan aqaana anigu haye dee markaa in adeer waa kaas aan arko waan ku koofiyay inaan teer markooyda waad iskala ooyay waxa inta doontaba ha kugu qaadato iska joog halkaaga iska saabniina iskala noolo aan wax kale garanaya ma jirtaan ilaan wax kale okay arrinkii booliska intuu marayaa markaan booliskii maalin dhaweyd gabadh baa noo timid gabadha wax xogaa ka qorqortay waxay tahay hadda Christmaskii waxaas way mashquulsan yihiin moogta nacam waa ogahay Christmaskii waxa lagu jira happy new year iyo wixii dhan lagu jira hay soo diraya bay tiri khamiistii dhaweytoola si jimcaha action aad samayso laga qaado video wax sidaas hay hadana waxa la soo galay Christmaskii hadda sanadka cusub laakiin balanteedu waa 4 January balan caadi ay leedahay teemina qorayso statementkii ka qorayso maaha iyada laftarkeeda wuu yimid ay tiri Sahra oo baxalihii socialkii way markii boolisku naga tagay social buu diray haye caruurtii baa la wareystay caruurtii waxay yidhaaheen anaga aabahay waxba naguma sameyn gabadhii dhahaysana gabadhii adiga kugu dhahaysa aabahay ugu ifara xumeeyey may hadalba wayba ina tira waaba lala dir way bedelan tahayba oo ina tira carjuuq dhabal laakiin gabadha adiga waxay kugu tiri aabahay uu isticmaalaa aniga way igu tiri inta ay timid ay tiri habar yar waxay igu dhacay bay tiri meed ogtahay ooyday maxad ooyaysaa waxa la ooyayaa bay tiri aabahay baa Siciida bay tiri ma ina kaligeed wax lagu sameeyay baad moodaysaa waayo baa ku dhacday maxaa kugu dhacay waxay ku dhacay bay tiri habar aniga baa aabahay uu ka taabtay anoo bii ka yimiday halka intuu kaga bilaabo halka igu geeyay markaas aan jeedhacooday oo baxoon meel kale ka ooyay tan baxay aqalkii uga baxay meel ka ooyay aqalka kamid haye waan sheegay sidaas dhacday maxad inaka uga geeyay maxay waa aabahoodo tan kale afka u gelisay bay tan kale afka u gelisay marka inantu inay ninka ka baqayso oo yartu waxay sheegtay yartan imiga ila joogta Siciida waxay sheegtay in odaygu weligeed badilayo abuskareynay dhowr iyo 20 sano qabo marka madaxeedu ma jiro waxay ka hadlaysaa ma jiro waa qof la dilay iska ogolayde laba qofka duu ogol yahay waxba kama soo qaad madaxun baa dhimanaya waa runta bilow aadinka arrinbaya waxba lagu falfalino lagu soo farfarino halka uu ku xalli beelad halka uu ku jooji bees leedahay anu rayga deedsar u fahmay ila qof yar oo ku waramay oo dhashay anigaygaasi habeen iyo maalin baan ooyay ii karba xitaa ugu dhuftay dhakhtar baba galay sidaan u ooyay imsishan ooyay مسكين مصيبة وعرف ooy waa aamso waxa dumarkii ii yimid ee aan u sheegay mid wayba dhacdayba horta anigu iyo Soomaalida idaawanaysa waa kaaga mahadcelinaya sida gabadhan aad u soo dhahday kaale gurigayga imaaw ee seexa cun cabjiifa lagama hela dadka oo dhan aad baan kaaga mahadcelinayaa haddaan ku agjoogi lahaa maanta sujuudda maxkaasin lahay haddaan kaa siiye waana kaaga mahadcelinayaa gabadhan hadday adigu ku hel lahayn wallaahi maanta duurkay gal lahayd qamri bay cabbi lahayd xashiishay cabbi lahayd ninbaa heli lahaa اللهم استعان ilmaa laga dhali lahaa dhibaatadan ka weyn baa heli lahayd halkaa joognaa baayadaan dhex joogno soo diga arkay ebi joognaa aniye meel la jooga soo diga arkay hanaa ee joognaa reer 3 bilood reer jaarkeeda la joogtay 3 bilood reer jaarkeeda la joogtay oo aan ahayn ajaaniba wali oo aanu ka soo kaxay cid ajaanib la joogtay ajaanib ku xigay la joogtay 3 bilood si ay aqalkoodana uga war hayso kan uga aqalka ku naban waa irid ku naban haye 3 bilood markay joogtaan ka soo kaxay oo ku anaana taaway reer halkaas ay la joogtaa intaan tagay baa nakeen habari hay bariison oo saabta 3 cisho markaa ku noqday maalinta dambe soo raac ما شاء الله تبارك الله إلهو أجركاسي إلهو عمرقا ديري إلهي يوقاتو مدي قبرقا واسع الله كاقا ديغو إلهي هكو عاويسا أسوك حيسي إلهي هكو قرقارسا أسوك قارتي قبر دايرو دباتيسا خير الله هكو سي قفي عن باتهي
dembi dhaaf allaha kaaga dhigo owlaada baari allaha kaaga dhigo meeshaa tagtid haa iyo hoo ha lagu dhaha ilaahay idinkii waa very calal xumo okay mid gabadha maadaama baasiboor ay leedahay adduunka meesha rabso kuma noolaan karta way ku noolaan karta meesha doonto ilaahay kuwa baasboor waa siiyey laakiin waxay doonaysaa qofka dhibaata gaadhay inaan gacantii lagu qabto waxaan maanta waxa ka seexan kari leedahayna ninkan waxa ku sameeyey inaa maanta iyo isaga loo qabtay doonaysa loo qabtay carruurtoodana laga fogeeyey intaas iyada bay ku waayahay mid ii sameey waxyaale waxaa jira aan raba anaa adigii iidaba in kala hadlo haddaan social media raba inaan ka hadlo kowna hay si gooni baan idiin soo wacayaa waana mahadsantihiin gabadha ii dhib aad iyo aad baan kaaga mahadcin gabadha ammaanay kugu tahay ii ilaali please and please waa ogahay inaa ilaalinaysid inoo xifdi khayr allaha kusi ummadda soomaaliya dhanna wallaahi hambaliya kuu soo dira wayna ku jecelin waana mahadsanta qof walba kuu soo qorayaa haye habaryaro insha allah biidn illaahi kariim horta waxaa samaynaysaa soo weyse qaado soo tuko soomaali ma wada xumo aabbahaa hadduu ku faraxumeeyey uu ku dhibaateeyey hooyadaha hadday ku dhagaysan weysay waxaa jira adeero soomaaliyeed ee adiga ku jecel rag soomaaliyeed ee abtiyaal ku ah ee diyaal dumar soomaaliyeed ee diyaal ku ah waxaa jira rag soomaaliyeed oo abtiyaal ku ah adeero ku ah ma fahantay oo maanta kaa damqaday oo caawa kula ooyey oo lehanoy gabadha annaga haddaa caawinaysa diyaar baan kula nahna ma fahantay niyadda yaanan lagaa jibinin 2 qof oo xun 3 qof oo xun haddaa arki soomaali ma wada xumo weligaa niyaddiyaa lagaa jibin soomaali dad fiicanaa ka buuxda haddaa kuu sheega gabarinoo 20 jir baa tahay aayaheeda lagu soo dheelay lasoo wada xumeeyey lasoo dhamaashay wax walba lagu soo sameeyey 14 sano adoo jirta ilmo kaasoo dilmeen aabbahaa ku farxumeeyey hooyadaa ku xumaysay waa ku dareemi karaa laakiin soomaali dhan kuma xumaynin soomaali dad fiican baa ku jira adeer fiican baa leedahay abti fiican baa leedahay sorry bay ku dhaheen wiilal meesha wiil Mustafa la dhahay wuxuu ku dhahay sorry abti macaan adeer macaan raali noqo ma fahantay dadka Soomaaliyeed ma wada xumo waa ku kacaynaa ma fahantay waa lagu gargaara baasboorkaaga markuu kuu soo baxo tikid ba lagu soo diraya aniga ila noolaanaysid inta booliiska ay arintaada kugu socotona waa lagu caawinaya dad maamada aad la joogtid ayaa ku caawinaysa ma fahantay niyadda yaana lagaa jibinin Soomaali dad fiican baa ku jira kuna seexa kuna sotos intaasa kuu sheegaa tamam Soomaali ma xumo abti fiican baa leedahay adeer fiican baa leedahay waalid fiican baa leedahay hadduu asaga xumaaday adeer fiican baa leedahay habar fiican baa leedahay dad fiican baa ka dhalatay soore bay ku leeyihiin habaryaro waan ka xunnay waxa kugu dhacay raali noqo aad baan ugu xunnahay way kula ooyeen annaga dhanaa kula ooyne marka waxaan ku leeyahay habaryaro eedo macaan eedaan ku ahay habaryaraan ku ahay aabihii xumayna xaqa allaha tusiya marka anigaa ku soo wacay lifekan hadda ka baxaya waan ku soo wacayaa insha allah si gooni waan kuu soo wacayaa si fiican aan u sheekaysanaynaa insha allah tamam haya asalaamu calaykum Allah so beautiful so eg tahay she's so beautiful gabadha hadda artaan quruxda indhaha u dhigamaysaan horta waxaa idiin sheegaa Soomaaliyay waxaad ogaataan oo aad ogaataan waxaa inuu cudur yahay cudurkana qof walba uu ku dhici kara muslim baan nahnay anagu waxaa naguma dhacaan ها Soomaali waxa anagu ma qabno subxaan ma aabaheed rasmigiiba may been bay ka sheegaysaa may run bay ka sheegaysaa hadaadan idinkiis dhageysan weyseen oo idinka dhagaha isku xirateen oo idinka aad cadaabaysiin anigu umada ma cadaaba qof walbo Soomaali ii soo cabaad anigu waa dhageysana labada dhagood Ilaahay wuxuu ii siiyay kan dulman inaan ku dhageystay kan dulman inaan ugu hiiliyo qof aan ugu aabayeelaana ma jirto qof aan ugu aabayeelaya ma jirto qof walba oo dhibaataysan waa dhageysana waana caawina haddaa idinka aad dhageysto dhageysiga micnaha uu leeyahay dhageysiga micnaha uu leeyahay caawa dareenteen
dhagaysiga micnaha uu leeyahay iyo weyninka uu leeyahay iyo wanaagga uu leeyahay micnaha caaw ma dareenteen ma dareenteen caaw gabadhan hadday heli lahayd aabba dhagaysto ama jiiraan dhagaysto ama adeer dhagaysto heerka ma gaar lahdeen aamin caasho yaa is dhagaysanay iskoolkia laga imaana cabdicasiis walaalkii anaa iskoolka ka imaanay ilbaabkan soo gala hooya iga bax ilmaha dad weynaa gurigasho ord ku xarow aamus sidaa dadka u aamusiinayseen ilmihiina u aamusiinayseen ha ka xaabiso guryihiinay ka shidanta guryihiina dulmay ka shidantahay teeda kale waxaan rabaa inaan idiin sheega soomaalida igu xiran beejkayga soomaalida beejkayga ku xiran oo 24 saac soo wacdo waxaa laga soo wacaya sug Facebook live ku jira oo kusoo wacaa ha waa ka hadli kartaa haye hor u soco walaalo hanay wallahi waan ooyay walaal inkaan allaha ku rido waxaase aabana maaha wax ilaahay ummadeena ka dhigay maaha inkaan allaha ku rido walaal inantaa gacanta ha la saaro walaal inantaa waxa loo qabto hadii ilaahay naftinoo daayo waad mahadsan tahay thank you يا والله هناي والله وان وي والله واحد مودينا inantaydii way tahay laakiin wallahi waan ooyay inaan adeeruah inaan naabtilmahay wax bila aadanimada waxa adduunka walaal wax ka dhici kara maaha hanay waxaan wax ka daran baa dhac walaalkay macaan dhibka jir waxa waaye ummadda Soomaaliyeed runta ma sheegto waxaan wax ka daran baa guryaha Soomaaliyeed ka dhaca run maartay mise been waxaan wax ka daran baa intay dhaceen islaanta maxaa ka siiya islaantan wax dhashay maxaa ka siiya waxayba ku leedahay islaanta gabadha waxay ku leedahay wuu dili jiray waxay ku leedahay maxaa lagu dhahaa ovenka raashinka lagu kariyo oo la geliyo intuu shidu madaxa u gelin jiray ku leedahay سبحان الله والمهاجي أو أبوه وحاكو سميني ولا صدق أتكستي أن إني يدو إني استشهد أنت نولان شيء نوشة دقيسين يزو إني يدو استشهد أنا ولا ما يإيدنا ويحنون سنت هاي إيدنا ويحنون سنت إلهيها عافية ما يدو ما فيوبا ناكتني ما فيوبا لكن والله أنت يروي أن أقلب بدن وين مسكح بدن إلهي بنت كل أرينا طاير وحلاقة والله أنا قلنا قعمنا وجيسين والله ما والله أنا وابصور ذا أنا وحدي قبل أن بوليس كسر ما تموه والله وانكسر ذا ماشي أنت دجنها إلى دجنيسا والله الحناي والله وانوي والله بالدمر كشرة كور أنا قلنا وي ما حد ما والله إلهي بنقول أري ما أمد حق الله تصير أمد حق الله تصير والله مدينا حقها تصير والله هناي والله إن خيرك عن تفوق والله اللي قبل ده اللي جوتنا إلهي وبتكاو بركيو آمين إلهي عمري هذا حد يري إلهي آمين إن أنت قرب قبضتين أنت يرنا آمين إلهي سير الله كسر صارنا على نعضل الله كردي هوارنا أدعي حق الله تصير والله محان قلت عيا والله ما يرو ودوي سيرنا ندري والله لوهم جروده إلهي بقول داري ميان والله لو فيري والله العافماد إلهي هدوك السيا أدو الحمد لله هذا نكا وحنون سي وحن وعذر دقاترين تسويدش كبارين أنا وده ماذا كلام ما أقارنه السويدش كأنت اللي باري المها دك والدين المها استعماله وده والبوالة بارا السويدش كأنت يبارين وحن وعذر كان قفل بونه كل إلهي أنت هاي سته الله كعافية آمين والله إلهك عافية أنا قلنا تشارك هاي أنا ودن ما أقبل دقنا والله هناي والله إلهي عافية إن شاء الله والله الله عافية آمين يا الله والله لكي مع السلام عليكم أيوة وعليكم السلام هاي أنا horta idinku waxa idin sheega you have to think ina waxyaalaha qaarkood ina idinka xisaabtantaan waaye waxaan waa cudurkan dadku ku dhaca ilaahay inta haysatan ha ka saaro faataxada u soo mara taada kale ilmihiina dhagaysto ilmaha aad dhasheen dhagaysto is dhagaysto saqiir iyo kabiir is dhagaysto nambarkaygan soo qora sugo +467615436 aaw shaxshaxle iisoo sheer garee xabiibi nambarkayga waa kaasa waxaan waa cudur qof walba podofile waaye yes podofile waaye waxaan wax walba waa cudur ilaahay ummadda ilaahay ku rid allah ka caafiya
af idinkaa ku jeestaynina hana habaarina wax aana dhici karna adduunka ma jirto balaayo intii adig kaa maqanta waxaa dhahay kheyrkaa ay ku maqanta taada kale dadka soo qoraya siday ku dhici karta maxay u dhici weyse awoodda ilaahay maa shaydaanka ilaahay wuxuu ku dhahay anigu wuxuu ka ballan qaaday shaydaanka in anigu waxaan qasan kara aan qasaayo nambarkayga waan soo qoray nambarkayga waa 46761543605 waaye marka waxaan idiin sheegaa waxaa waaye dembigiina allaha dhaafo qabriga waasac allaha inooga dhiga gabadhan yar ma aho sug norway laga soo wucuyaa ha asalaamu calaykum walaalkay facebook live aa ku jira makusaa wici karaa ها codka ma kuu furaa hay codka kuu furaa inaa ka hadlo gabadhan iyo waxa ku dhacay iyo sida wax u jiraan adiga Sweden aad degan tahay aniga Norway aad degan tahay darisa kula ahay haye soo dhawo marka bayortu waa ka ma waxa dhacay waana sax adiga ku guraayahay waxaan cudur waayo dadku ku dhacaa Norway ma qan 3 sano 4 sano koorkiis noocaas oo kala dhacay marka anaga xogaa Soomaaliya waxaan nahay dhaqan waxaa qabnaa abaadiyaha ka imaan oo ah wixii in la qariyo in la daboolo in la yahay waxaan ma dhici karaan hadday dhacaan xaal hoose iyo si hoose loo dhameeyo maxaa tiri ku soo cel raali noqo telefoonka meel fogaan geey maxaa ay tiri Soomaalidahiin Norway anaga Soomaali hadana codka caadi waa Soomaali maqlaa waa la maqlaa codkaaga walaalkay codkiis waa maqashin ma hore u soco hadda maxaa tiri Norway ka dhacay cudurka camal aniga 3 sano ka hor Norway waxa ka dhacay kiis noocan camal marka xogaha waa la daboolay waa la qeyqeydiyay ma dhici karaa dhiri anaga marka Soomaali hadana waxa qabnaa dhaqan wuxuu markay dhacaan in meel kale loo carro ilaa islaam aan nahay waxaan ma dhici karaan dhaqan aan leenahay muslimiin aan nahay dad fiican aan nahay wixii inta la isku dayo in kiiskii la daboolo oo laga dhigaba waxa dhici kari haye tusaale aan Soomaaliya kale waxa ka dhacday waxyaabaha la yaabka waxa kamid Soomaaliya kale waxa ka dhacday gabaraa 3 nin xoogtay barkay xoogtay kufsadeen waxay rabaan ku sameeyeen odayaal qabiil inta shireen isku tageen waxay dhaheen bal kufsi ka daran ma jira gabadhii la kufsaday waxay dhaheen nimankii kufsaday mid kamid ah loo guuriyo haye waliga cadaalad mas'uul aska ma arag a'uudu billahi min cadaalad annaga marka waxaan nahay cadaalad ka fog gaar ahaan taadiga dumarka loo geysto dad qaabkii ula dhaqmayaan ay qalad tahay aniga waxa qabaa madax kula qabaa waa sax adduunyada cilmi baarista marka la sameeyay waxaan waa cudur dadkana way qabaan gaal iyo muslimna qof kasta qaba nacam oo ku dhici kara nacam marka ilaahay qofka duu caafimaad siiyo waa goon aniga Norway kiis waxa ka dhacay gabadhan waa gabar weyn ilmo yar oo 3 sano jira nin dhalay inuu isticmaalay oo ilmihii markii dambe meeshii banahaaga ama adiga dog isa tiraadin ciyalka la geenaayo dekeerka ilmihii dawladda ku arkeen dhiigi wax in la maxaa la sameeyay marka adi meeshii dagaal iyo wax ka dhacay kiiskii markii dambe xal mastuur iyo Soomaali iyo bilaayal lagu galay kulay dawladii maxkamadda tala saaray ninkii lama xukumin wala arki laadi la xukumi lahaa ilmihiina aaway wallahi هذا كله بيكيس كسمة خان صوته وحقوقها عن الصومالية وحقوق ولا الضوء السودية موقتها أصلا كورية أفر سنة ما واحد ده ربطة سك ما واحد ده ربطة المير أيال وحقوق النرويج 6 سنة 4 سنة كهراء ما كيس كرسي عمل وايز كذا لكن المير عن جابت المها عشان نيجي قضية علمية وحسمية انتو شو جامرك النرويج ودقين حيه ilmihina Norway joogaan 4 sano ka hor marka waxa ogahay dad badan oo Soomaaliya reaction-ka ay ka bixiyeen ay ahayd ma dhici karo sameey karo saan waay marka ani adiga ku qabaa waxaan waa dhici karaan muslimiin ka dhici karaan gaal ka dhici karaan qofka bini aadankaana waxaan markay dhacaan ninkii waa in la qabtaa la baaraa maxkamad la geeyaa caafimaadkiisa la baaraa gabadhan waa sax cuquba ku dhacday dibaa ku dhacay masiidara ku dhacday waa in meeshaas ka badbaadaa qofka xataa maskaxiyan waligiis ma caafimaadaya duka caafimaadaya maskaxiyana qofkan loo dilay jirkan waa wax weyn ma hadii loo fiiriyo qofkan jirkiisu dhaawacay wuxuu waa ka kabsaa laakiin cuqubada maskaxiyan qofkan ku dhacaado wax laga soo laabtay ahaan wallahi aakhira war baa jira marka anaga Soomaali hadaan nahay wallahi runta ma la isku sheego guriyaha waxaan waa ka dhacaan waa lagu sameeyaa guriyaha waxa fiir farsaamo guriyaha waxa jooga gabar oo kiisaska ugu badan waxay ka dhacaan nin qaba naag ilmo hore soo dhashay simple oo meelaha ugu badan nina gabar qaba
gabadhan oo qaba garoobe ahayd ciyaal hore lahayd gabdhay lahayd gabdhihii isticmaalaa waran ciyaal xamar ah baar waxa ku soo koray xamar ka dhacday nuur waxa laga sheegaa 2006 xilligii amaaro soo galaysa أعوذ بالله من الشيطان in gabar adeerkeed hooyadeed qaba looga tagay odayga qaad iyo balaay baqti cuni jiray duqdii ilmihii kale ay ceelasha u qaxeen gabadhii odayga isticmaalay gabadhii qarqariday baqday waliba ugu hanjabay oo ku dilay adaa sheegto هيا ilaa markii dambe gabadh uur yeelatay habarteedna waa qabaa ilmo ka dhalay uur u yeelay ilmahana u dhashay ilmo kale u dhashay laakiin gabadhan oday kala soo dhalay iyo wiil kale أعوذ بالله habarta ilmo ka dhalaa gabadh ilmo ka dhalaa marka waxaan waa cudur waa saa sheegayso gaal muslim ku dhici karaa waana sax mid kale war yar oo kooban oo la iska dhaho ama waa caawinaa iyo dhaqaale nacam laba shay gabadhan aan la rabaa labada shay oo la rabo waxa waaye ninkan waxaan sameeyay hadduu wadan Yurub joogo in la qariyo maaha oo in cadaalada maraa cadaalada oo maraa waxa waaye gabadhan hadduu isticmaalo kuwa kalena uu isticmaalaa absolutely idaaba kula maamadeeba ku sheegaysa gabadhi guriga igu timaadee ku tiraaday waxay ku tiraaday waa aabahe uu isticmaalay itiraaday gabadha isticmaal Soomaaliya kuwa kalena uu isticmaalaa macala wiilasha yarka uu isticmaalaa ninkaas marka waa in gurigaas laga saaraa guriga ninka waa laga saar laakiin habartii ilmaha u geysay wali baa la dhahay waxaas ma jiraan ninkaas habartaas waa in lala hadlaa waa in maxkamad ninkaas la saaraa inta uu daawo u baahan yahay waxa jira meel dadka oo maskaxda la iyo dadka waa absolutely waa in meeshaas karantiilka lagu xiraa nacam ilmihii kale oo dhibku gaaray ilmihii kale waa la wareystaa gabadhan waxa laga yaabaa inay tahay qof karti badan oo wixii sheegtay kuwa kalena la sheegi kari I agree with you wasaxsan tahay ciyaalka kale waa in la wareystaa ciyaalka kale waa لازم من قبل استعمال كو كلام قبل كلام جعل كو كلام واستعمالها waa mahadsantahay umada Soomaaliyeed ee ku dhageysanayso aan is dhageysanin waxa ku dhahaysa umada Soomaaliyeed waxaan ku tala san waa dhinac kasta anaga bulsho ahaan haday taa qof oo siyaasad ku dulman haday taa qof bulsho ahaan ku dulman haday taa qof wax kasta ku dulman qof kasta ee dulman ee sheegaya ee cabasho sheegaya wuxuu sheegaya horta rug iyo been gadaal artaa ka noqoto horta marka hore waa in la aqbalaa nacam qofka marka aqbasho oo dhageysato oo wixii baaris lagu sameeyo waxa dhici karta in wixiina been noqdaan run noqdaan nacam aniga waa kiis nuur kala ka dhacay oo niman inaaga dhaqaale isku haystaan oo naagta ninka ay wax been ka sheegto markii baaris la sameeyay wixii been noqdeen laakiin waxa la rabaa hada يعني واحد بسمي يتلاون يا با waxaan kaba dhici karaa بسم الله الرحمن الرحيم ياسمين وحريسو qofina ايوه ka gasho بس waa mahadsantahay qofaan soo qabtay oo ku sii daay ياسمين hadal بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan ummadda muslimiinta inta ku jirta iyo hana iyo inta dhageysanaysa horta waa min subxaanalle ilaahay hay naga hayo dhacdooyinkaas waa dhacdooyin soo noqnoqda aadna ugu badan qurbahan laakiin waxaan oran lahaa aan ku darsan lahaa anigu inantaa yare islaameed ee caruurteena kala ah in eedada iyo habriyarta u nahay ee masiibadaas ku dhacday waa masiibo godkeedii ay biyo ugu galeen oo hooyadeedna fahmi weyday baan ugu arkaa ilaahay ha ka dulqaado in ummadda islaamkana waxaan leeyahay u duceeya iyadana waxaan farayaa habar yar siciiday waxba noqon maysid waad ka badbaadi doontaa ilaahay baana ka furdaamin doona laakiin anigu waxaan oran lahaa maxkamada la soo taago Soomaali Maxamed meeshay doonaan baha joogaani ha isku tagaan oo xeerka hala mariyo sharciga ta kale waxaan ku darsanayaa hanay walaalo waxaan aaminsanahay bacdimaa uu maamada uu qabay 20 sanadood oo ay tayari uu funkaabo madaxa u gelinayay gabar uu soo abuse gareeyay aan hadli karin inay tahay hooyadaasi oo iyadu laftigeedu u baahan caawinimo u baahan oo aan hadli karin oo abuse ku soo dhacay oo dib ku dhacday oo dibtina qarsatay Soomaali sideedaba waxaad ogtahay waynu qarsanaa dalaayada waynu qarsanaa ma sheegno ubadkana afkeenu kaga boodnaa lama sheekaysano ubadka ma daba galno ubadka haday iskuulka xadaa ka yimaadaan cadaankaasay ku dhex nool yihiin ma nidhaahno maanta BED maxaad lahayd maxaad qabatay maxaa lagu soo dhigay aamu cunto cun seexo ayay Soomaalidu ku hayaan ciyaalkooga waa dhibaatada ugu weyn ee qurbaha taala meel kasta in joognaanay waynu ka wada dheregsanahay
dumar haddaa la نعم yahayna stressku 99% dumarka wuu ku badan yahay ama ha la qabo نعم ama yaan la qabin because waxay ku نعم mashquulaysaa hooyadii telefoon waxay ku mashquulaysaa نعم gabadh sheeko نعم ubadkeediioo kala baylaasan bay iskuulka ka soo dareersa chicken bay meel uga qabanaysaa aqalkay ka seexinaysaa hadday doonto seexseexday horta waxba kama ogaa stress ayaa نعم haya marka نعم qurbahan aad baynu ugu dhibaatoonnay ilaahay dhulkeennii haynagu celiyo inagoo nabad iyo caafimaad آمين qabna inta xanuunsanaysana ilaahay xanuunkaa ka dulqaado inta dhibanna dhibaatada allah ka dulqaado inta waxgaradana آمين waxaan leeyahay anigu oon ku koobinaya hanay rag iyo dumarba inta i dhegaysanaysa war ilmihiina u fiirsada war ilmihiina la sheekaysta hadduu aabihii laxmiga yahay iyo hadduu aabba kale oo hooyo ku dul guursadeeba yahayba waa isku mid xanuunkani waddan walba uu jiraa meel kastana uu yaallaa waxay soo waad qorayeen maxsan dumar tahay badani imika ay lahaayeen hanay ma aabihii rasmiga ahaaba ma aabihii aabbaha rasmiga laftigiisu hadduu xanuunsanayo saasuu samaynaya marka inantaa نعم yar waxaan leeyahay habar yar iyo eedo wax noqon maysid waad ka badbaadaysaa 21 jir baa tahay cimri iyo caafimaad ba allaha ku siiyo waanad ka guulaysanaysaa insha allah bismillahi kani gabadha haysa magaceeda ay dhaafay gabadha islaameed ee walaashaya ee Soomaaliyeedna waxaan leeyahay jazaakum khayr waa ubadkaaga oo kale aad baan idin wada salaamaya wallahi oo mooshin baan hayaanay caawa kama seexan karayo waa ubadkayga oo kale kama seexan هيا karayo السلام عليكم السلام عليكم walaal waan salaam ya dhamaan raali noqda iya qofka ugu dambeeyaan soo qabana waana sii seexana you know what 2 o'clock 3 o'clock ka ii tahay السلام عليكم داقو هنا معك سلام وعليكم وراء السلام هوري استوعا والله بالله طلع انت برنامج كدادين السنة هلا ولا وهلا اني ما عسى كودي ولقي وحن وبقل ولقي وحن وكل دد انتي في فيسبوك لايف ku jira saa ugu jir haye hadal ولقي maxaa tiri هرت deeqo وحن وكل ما انت دوين وان حدين قريري كودي haye والله وحن دي كله waa cudur walaalo qof samayn kara ilmihiisi waxa u quuri kara oo xataa fadeexad xataa ilmihiisi xataa isagu oo haduusan xanuunsan xataa fadeexad buu uga biqi lahaa ma garat haye marka waxani waa qof xanuunsan qof ka biqi waayay aabihii ilmaha aabihiis baa tahay gabadhaada fadeexada uga baq gabadhaada maxay ahaydee future-keeda u baq waa qof garan waayay marka qofkaas waxaas oo dhan waxa mugdiga ka saaray waa qof xanuunsan he is sick waa qof buka nacam qof ayoobi waxaas kama suurtoodo shaydaan kasta oo ku wata ilmahaaga hooyadii oo guriga kugula nool ma samayn kartid waa xanuun cadaankana way sameeyaan 95% cadaanku ku badan yahay soomaalidana way ka buuxaan laakiin waa daboolahayaan dhagaha wax ma aragno oo wax ma urino oo wax ma maqalay oranayaan shab qof kale laga koobin ma aqaana amus balaleey amus caar afkaaga shan leera saar balaleey aadar marka wax waa la uriyaa oo wax waa la maqalaa oo adduunka horumar baa la gaaray wax waa la uriyaa wax waa la maqalaa waxaanina waa xanuun islaam waleeba ninkani aba 30 sano ha ku qabo aba 20 sano ha ku qabo aba hadda guurso aba 10 nin soo dhal careful ilmihiina waa inaad kargaraysaan waayo xanuunku qofka hadduu xanuunsan yahay waddankan sharci baa ku qabanaya iyo waa lagu xidhaayaa iyo waa lagu dilayaa iyo sharci baad waayaysaa iyo xabsi baad mutaysanayaa siig halo hadduu yahayna waxba kama waabanaayo beenta mala mustafa wallahi waa diin la'aan ilaahay baa laga fogaaday tii ilaahay baa laga fogaaday ahay waa diin la'aanta alla diintu macaan badana alla ilaahay markaa u dhowda alla markaa salliga tukanaysid alla markaad ilaahay xus subxaanallah alxamdulillah laa ilaaha guraysid iyo markaada ilaahay ka fogta kala fiicana bahasho alla ilaahay markaa u dhowda macaan badana oo markaa ilaahay ka fogtahay balaayo dhan waxaa ku imaanaysa deeqoy balaayo dhan saaxiib waxaa kula noqonaysa qashin oo dhan waa diin la'aan Soomaali ilaahay bay ka fogaatay Mustafa afkaaga marba lagu qabto ina adeer ha marka qofka hadduu xanuunsan yahay walaalo waa lagu xidhaayaa iyo baasaboor baad waayaysaa iyo ceeb baa ku imanaysa iyo fadeexad baad waayaysaa iyo ilmahay baa gaala kaa qaadanaysaa iyo waxaasoo dhan ma garanayo waa qof balaayo waa qof qalbi madoobaad qaba oo madaxa ka buka waa qof qalbi madoobaad qaba waad mahadsan tahay waana kasii dhacayno meeqa saac ay tahay waa 9 saac biri 6 in the morning baan ka caashaqan leeyahay walaalayaalow isku naxariista sanad wanaagsan anigu safar baan ahay
telefoonkaygaas waxaan rabay wallaahi inaan ka tagi maayo gabadha yar baan u qaadanaya madaxeeda gabadha yaroo london joogto ee uk joogto ee dhibaataysan baan nambarkaas telefoonkaas waxaan rabay wallaahi kuwa shaqada iima ogolo laakiin berri baan u tegaya waxaan leeyahay muhiima uu ahay faataxada iisoo mara in lay ogolaado lagu dhaho iska qaado 4 faataxa iisoo duceeya qolada shaqada telefoonkan layma ogolo inaan qaato safarada qaar lama ogolo inaan qaato laakiin waa berri waa u tagaa waxaan leeyahay anigu kan la-aantii ma noolaan karo ayeydeyba xanuunsan baan leeyahay soomaali joogto oo sakaraad ah so communication I have to communicate baan leeyahay ummad soomaaliyeed baan kala they know ummadda soomaali inaan kala hayo laakiin keeska inaan u sheego waay berri aan cajalkaa tusiina naagta madaxda ii ah marka cabdikii masaamaxa idinla deeqo walaashay habeen wanaagsan habeenkaa idiin wacnaado sanad wanaagsan anigu life ma soo geli doono insha allah biidin illaahi kariim hanay laba erey baan kugula dardaarmayaa haye waxaan ku oranayaa walaalay kiiska gal maxay ahayday carruurtaa kalena ha badbaadaan carruurtaana siisan cadow inoo gacanta ugu gelin carruurtaana ha la badbaadiyo hooyada laftigeeda ha la badbaadiyo iyadaa dhakhtar u baahan gabadha uun xooga yaa la saarin gabadha waan caawinaynaa waan u taagana anigaygaa deeqa waa ka qayb qaadanahaya wax soomaali oo dhanna waxaa laga ka qayb qaata lakin waxaa laga hooyada gabadha dhashay iyo ciyaalka kalena ha la badbaadiyo ha la baadho maskaxiyan ha loo baadho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu habeenka ha idiin wacnaado sanad wanaagsan dembigiin allaha dhaafo qaatumad allah idiin sameey qabriga waasac allah inkaga dhiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soomaaliyay tooso isku tiirsada hadba keena taag daran taageera weligiina isdhegaysto dhagaha ilaahay wuxuu kuu siiyey dadka inaad dhegaysatid dhagaha ilaahay wuxuu idiin ka qarsada dhagahaas muu jeedin ilan caqli kalama qabtiin kuwaas waxaa lidiin siiyey muu jeedin dhagahaas muu jeedin dhagtayda ilaahay wuxuu idiin siiyey inaad dadku ku dhagaysataan asalaamu calaykum waraxmatullah dhagta waa intuu siiyey ilan ma aragtaan dhagaha ma aragtaan ilan ma aragtaan moogtahay qof ilmaha kula hadlaya seexa qolkiga gal dhagta ma aragtid anaa ku tusiina dhagtaasaa lahaa dhagta muu jeedaa dhagta noocaasay u egto saasay u taalaa dhagta jirkaaday ku taallaa wejigaaga taaba madaxaaga taaba indhahaaga taaba halkaas taaba dhankaan u sika inta u duruq halkaas dheg baa ku taalo dhegta halkaa ku taala dadka ka dhagaysto I love you so much caawa idanku waa igu qoslaysa qofka magska soo gala waxba ha igu qoslin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciro way igu taallaa am proud cirina igu taalla guul i gowan is dhagaysto orda